waa tahay daawadayaal waxaynu joognaa deegaanka Balhigis oo ah duleedka magaalada Cadaado abwaan Cabdullaahi Farasle oo ah abwaan si weyn looga yaqaan deegaanka ayaa ila jooga waxaan idin soo gudbi doonaa sheekooyin gaagaaban oo kala duwan ugu horeyn abwaan soo dhawow waxaad bal iga warantaa markii roobkan oo kale iyo cawska iyo biyuusan isku agyaalaan maxaa laga yiraahdaa deegaanka waxa laga yiraahdaa barqadharig haya deegaankan wuxuu ahaan jiray abaar haya ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ku shubay madar marka meeshan abaaray ahaan jirtay laakiin raxmadda ilaahay markii soo gaartay naqaan dhirigta iyo biyahana fadhiya marka waa barqadharig xoolaha ka cabay way daaqeen waa lagu diirsaday waayahan dambe waxa soo badanay dadka inta yimaadaan joogayo waqtiga ku qaadanayo waagii hore ma jiri jirtay in xilliga roobka saano kale waqti lagu qaato wala imaan jiray laakiin hadda waxa ku soo batay deegaanka dadka yimaada oo waliba bisha barakaysan lagu jira inta yimaadaan dooga iyo xareeda qabowga ka raadiya oo leerta iyo neecawda iyo saxsaxada soo aadaan marka hadda galabta meeshan joogna waa Balhigis Balhigis wuxuu caan ku yahay geesaha waxa ka xiga buuro roobku markuu doo buuraha biyaha ku soo roga marka meeshana waa meeshii maartay balliga ahayd balligii way biyeemaan wax taxa iyo ma jiraan waxyaabo ugu tala gashay xilligan oo kale marka nimcadu saaran tahay runtii laba taxan ugu tala galay galabta oo kale markii barwaaqadan oo kale aan arko waxba iska soo kay dhacda marka tan koowaad waxa la yiraahdaa hodan taxda koowaad hodan la yiraahdaa waa jiifto cadaadu hodanahan harkii tagayo jawga habiga nafta ka hesho haraalay agteedan hashi kulliso haasaawuhuna waa hareerta galbeed Balligii Higis baan ku sii hirano waa meeshan galabtanay waxaan malay حرب اسمه يوسف إنه قلبت حناقه وحول حناقية مرها سوق عطسة إنه ما عرفت ريسك لكن والله ده ما يستر يا هو مرك حربي وحلا قلبت إجرا قاع كسي ما موضة قادم ولا برتش وحرير قوسن وعرف قوسن تحلى بعض محل هذا تحلى بعض واحد يا سبحان الله وحكى هذا إلهي دقدي سيء وديسة هذا سبحان الله markii waxay ka hadlaysay ilaahay deeqdiisa iyo maartay rasaaqada iyo raxmadiisa iyo dhulkan sidoo abaarta u ahaa iyo sidoo ugu hooriyay isbedelkiisa sidoo ilaahay ugu hooriyay rabba dunida saytaystay oo subaxba meel taagay oo sugay makhluuq oo sanacadii saatan noo saxay saantiyo talaabada la rogo saacada u qoray sanqaroorka leertana u fura saabkana u geeya qabsimada sursuraha mara ee sirqda aad moodid sanbabihiya beerkana ka dhigay sidii walaalaha dhiiggaas luumbeynaya sare u yaacaya sulka iyo xiriirka isku xiray seedka faylaha asaga sujuud nagu leh oo saamaxaad badan hadduu siriq galiyana wallaan cid ku saareen qabuuraha saqiir iyo kabiid siri lagu ooday asaga surgooyo dadkaas way dhamaantooda badahana sarsaar buu ku xiray suuma gudubtahay sanad webiga guriyo misanasiya biyihii suuxanyada aad aragto rabba siiqada u qoray sarta weyn abeesada ku ray miciga seeftahay برواقنا سنه وحكا دغا سونka dalowga maroodiga surweyna rabba suray awoodaan jalla jalaalu aad weyn waa dabcan waa tixqiiman badan oo maxaa la yiraahdaa waaqici ka hadlaysa Allah meeshaan abaara naq u bedelay dad kalena way soo socdaan mootooyin waxbay soo saareen awska la isku arkay hatta waxaan maxamed u arkay galabta boolo ay in muddo ay ugu dambeysay aan galabta arkay oo raahdo gurubsanaysa wala isku yimido nimcada ilaahay baa loo soo wala isku arkay wala wada badaya aada weyn qayb kale aan galeynaa qaybtan intaas aynu ku soo gabagabeynaa abaan Cabdullaahi Farasle ayuu ahaa oo tixdan noo tirinaya iyadoo laba tix oo kala duwan ay ahaayeen